soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijkeena maanta aan kula wadaago warbixinno iyo falanqayn kooban waxaan diradda ku saari doonaa warka cusub ee ka soo yeeray sargaal hore oo Raashiyaan ah maxaa ka jira wili Iiraan inaysan adeegsan hubkeeda ugu culus maxayna ahaayeen Shiinayska gudaha dalka Iiraan ku sugnaa ka hor dagaalka maxay qabanayeen xogta sargaalkan uu bixiyay ayaan eegaynaa iyo arrinta ku saabsan Kurdiyiinta dalka Ciraaq dagaalka ma ku soo biiri karayaan maxay tusaale u haystaan maxaa laga taageeri doonaa maxaa loo ballan qaaday sideen arrintan Turkiga u arkayaan qodobo kale ayaa raaci doona ay kamid yihiin wararkii ugu dambeeyay insha Allah soo dhawaada ku soo dhawaada mar kale iyo maracadda show ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay Al-Mahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo waxaan ku hormarayaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un maanta wuxuu kormeeray tijaabada gantaala cruise oo ay samaysay dawladda Kuuriyada Waqooyi gantaaladaas oo la sheegay inay yihiin kuwa cusub oo loogu talagalay inay burburiyaan maraakiibta iyo ciidanka badda ee agabka isticmaalayaan ee cadowga sida wakaaladda wararka KCNA ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ay baahisay tijaabadan waxaa sidoo kale ka qayb galay saraakiil dhowr ah waxaana la sheegay tani inay tahay u diyaar garowga iyo tijaabada gantaalada noocyada kala duwan oo Kuuriyada Waqooyi ay soo saarto Kuuriyada Waqooyi ayaa haysata hubka nuclearka waxaa sidoo kale ay tijaabiyaan markasta gantaalo cusub iyadoo ay sayeen dhanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo xitaa dalka Japan Mareykanka ayaa halkaasi ku sugan oo aad ula socda dhaqdhaqaaqa dawladda Kuuriyada Waqooyi aan kula wadaago warbixin lagu daabacay wargeysa Defense Arabic oo arrimaha ciidanka aad uga faallooda warbixintan waxay ka hadlaysaa sargaal hore oo howlgab ah oo Raashiyaan xog uu bixiyay waxay ku saabsan tahay ciidamo uu sheegay inay dawladda China ka socdeen oo ka hor dagaalka ku sugnaa gudaha dalka Iiraan iyo waxyaabaha ay qabanayeen iyo sidoo kale Iiraan in wili aysan isticmaalin hub aad u halis badan ama aad u awood badan aan kula wadaago iyadoo xiisadda Iiraan iyo Mareykanka ay sii kordhaysay iyo dagaalkana uu galay maalintiisii lixaad waxa soo baxaya hadallo xasaasi ah oo dood dhalisay oo ka soo yeeray sargaalka howlgabka Raashiyaanka Vladimir Popov lagu magacaabo sargaalkan wuxuu hore uga tirsanaa ciidanka dawladda Ruushka waxaana xiriir dhow uu la leeyahay sida la sheegay madaxtooyada Ruushka waxa uu sheegay inay jiraan macluumaad sirdoon oo muujinaya in ciidamo ka tirsan dawladda Shiinaha ay ku sugnaayeen gudaha dalkaasi Iiraan ka hor maalmihii dagaalka sida uu sheegayna waxay halkaasi u joogeen tijaabada gantaalo cusub oo horumarsan oo dawladda Iiraan ay soo saartay suuragalna ay tahay Shiinaha inuu ka caawiyay General Vladimir Popov waxa kale oo uu sheegay in cutubyo ka tirsan militariga dawladda Shiinaha ay si toos ah uga qayb qaateen tijaabada lagu sameeyo hubka culus gaar ahaan hubka hypersonic oo dheereeya kana dheereeya xawaaraha codka sida uu tilmaamay kooxdani kaliya ma ahayn la taliyaal balse waxay si firfircoon u tijaabinayeen buu yiri nidaamyada cusub ee gantaalada oo kamid ah gantaalada bambooyinka hypersonic oo lagu tijaabiyo goobaha tababarka military iyo dhoolatusyada ciidamada dawladda Iiraan ay sameynayaan waa run oo maalmo ka hor dhoolatus military oo waxa jiray wadajir ah oo Ruushka Shiinaha iyo Iiraan ay sameeyeen laakiin inay gudaha Iiraan ku sugan yihiin oo Iiraan ay arrimahan ay ka caawinayaan isaga ayaa ugu horeeyo xogtan banaanka keenay tani dagaalka markii uu bilowday sidoo kale sargaalkan wuxuu yiri Iiraan yaan lagu degdegin weli waxa jira hub aad u culus oo aysan adeegsan waliba hub aad u awood badan buu yiri wuxuu tilmaamay Tehran inay qaadatay xeelad military oo ku dhisan dib u dhigidda isticmaalka hubka awoodda badan ee aadka u horumarsan ilaa marxaladda ugu dambaysa ee dagaalka ayna la sugaysa arrintaas ayuu yiri ama hubkaas inay adeegsadaan sida aan qiyaasay wuxuu yiri hoggaanka Iiraan waxay sugayaan waqtiga dagaalka uu gaaro heerka ugu khatarta badan gaar ahaan marka cadaadis xoogan ay saaraan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyo dawladaha kale ee reer galbeedka sida daraadeed si ay isu badbaadiso waxay adeegsan doontaa markaas buu yiri hubka culus ee ay gacanta ku hayaan wuxuu intaas ku daray in Shiinaha door muhiim arrintan uu ku leeyahay ma ahan oo kaliya dhinaca farsamada iyo tiknoolajiyada balse sidoo kale wuxuu yiri taageerada sahayda military ee laga yaabo in Iiraan ay u baahato haddii dagaalka uu sii xoogaysto Shiinaha ayaa ka taageeraya warkiisan wuxuu ku soo beegmayaa saacado kadib markii madaxtooyada Ruushka afayeenka u hadlay Dmitry Peskov uu sheegay ilaa iminka Iiraan inaysan kaalmo military soo weydiisan sargaalka hadii aan ku laabano wuxuu yiri Beijing waxay u aragtaa xaaladda dalka Iiraan fursad dhif iyo naadir ah oo lagu qiimeynayo hubka casriga ee Mareykanka uu isticmaalo iyo sidoo kale halka lagu ogaan karayo awoodda hubkaasi taas oo warshadaha difaaca ee dawladda Shiinaha siinayso xog iyo khibrad aan laga heli kareynin
tijaabooyinka caadiga ee shaybaarka iyo hubka ay Mareykanka inta badan ay tijaabiyaan. tanina dan baa ugu jirto buu leeyahay oo dhaqdhaqaaq ay la socdaan. sida sargaalkan uu sheegay marka Iiraan waxay si dhaba u noqotay goob lagu tijaabiyo hubka dawladda Shiinaha iyadoo la adeegsanayo dagaalkan sidoo hadalka u dhigay, laakiin warkiisan ilaa iminka kama aysan jawaabin mas'uuliyiinta dawladda Ruushka, Shiinaha iyo sidoo kale dawladda Iiraan. laakiin waxa uu qirayaa marka falanqayntiisa iyo qiyaasihiisa uu sameeyo sargaalkan la eego in Iiraan ay muujisay awood aad u badan iyo adkaysi aad u dheer muddo 6 maalin ah. sidoo kale wuxuu yiri weli hub ma aysan isticmaalin, ujeedada hubka aysan u isticmaalinna waa in ay sugayaan maalmaha ugu qaraar inay hubkaas ay adeegsadaan iyaga oo doonaya dagaalka inuu meelo badan uu ku baaho. wax ay dhowranayaan ma jirta buu yiri haddii ay dareemaan culeyskaasi la mid ah. waxaa hadda aad loo hadalhayaa baqdinta laga qabo Iiraan inay bartilmaamaysan karto xarumaha nuclear-ka ee Israa'iil, laakiin taas waxaa la sheegay inay ku xiran tahay dareemidda culeys aad u weyn oo dhanka Iiraan kaga imaan karaya Mareykanka iyo xulafadiisa. Iiraan waxay haysataa gantaalo aad u awood badan oo ilaa 2000 oo kilomitir gaari karayo. haddaba dhinaca kale markaan eegno Iiraan waxay dareemaysaa culeys weyn oo dhanka Ciraaq ah. halkaas aad ayay indhaha ula raacayaan, sirdoonkooda shaqo badan ayuu qabanaya, waxaana ay duqeymo ka geysanayaan goobaha ay ku badan yihiin Kurdiyiinta dalka Ciraaq. sababtu maxay tahay? Israa'iil iyo Mareykanka oo iskaashanaya ayaa kaarta cusub la yimid. si gaar ahaaneed sirdoonka Israa'iil ayaa la sheegay bilowgii inuu keenay naqshada ah in Iiraan weerar dhanka dhulka ah lagu mashquuliyo, aagna looga furo ama doc kale looga furo dhanka iyo Ciraaq. taasi waxay keeni doontaa bay yiraahdeen in ciidamada Iiraan la daaliyo, sidoo kalena awoodooda halkaas ay isugu geeyaan. waana aag kale oo cusub si lamid ah sida Xisbullah ay furin dagaal ay ugu tahay dhanka iyo Israa'iil. aragtidaasi waxa la sheegay sirdoonka Mareykanka in laga dhaadhiciyay oo ay aqbaleen, laakiin waa tijaabo culus oo haddii Iiraan ay ku guulaysato kooxdan inay ka adkaato waxay noqon doontaa guul kale oo labaad oo Iiraan ay gaartay. marka la eego kooxaha Kurdiyiinta oo halkaasi ku sugan waxa isweydiin mudan yeeyihiin marka hore halkee ayayna degaan. kooxaha Kurdiyiinta inta badan waxay degaan xuduudaha Ciraaq iyo Turkiga iyo Iiraan iyo sidoo kale Syria. mana jiro dal rasmi oo ay haystaan, laakiin ballanqaadka hadda CIA-da iyo Mossad ay u sameeyeen waxa la sheegay inay tahay in lagu yiri waxaan idin siinaynaa taageero aad u badan oo dhanka cirka, logistikada iyo hubka. annaga ayaa dhanka hawada idinka difaacayna oo dhaqdhaqaaq kasta ka hortagayna. haddii aad qabsataan dhulkiina dal ahaan ama dawlad ahaan ayaa la idin aqoonsanaya. horey Iiraan way u dagaalameen wayna istijaabiyeen, laakiin hadda kooxdan waxaa la sheegay hogaankooda ugu sarreeya qaarkood inay labalabaynayaan, qaarkoodna waxaa la sheegay si cad inay u yiraahdeen dagaalka kama qayb galayno. inta labalabaynayso waxay tusaale u haystaan Syria iyo wixii ka dhacay iyo sida loo cidleeyay markii isbedelka uu yimid 2024 bishii December, xilligaas oo ay dareemeen ilaa iyo iminka in looga baxay dagaalkii gudaha dalka Suuriya. waxay sidoo kale dareemayaan culays kaga imaan karayo shiicada tirada badan ee ku sugan gudaha dalka Ciraaq. waxa la isweydiinayaa marka suuragal ma tahay shiicadaasi inay isqabtaan. haddii shiicada iyo Kurdiyiinta Ciraaq ay isku qabtaanna Ciraaq waxay gali doontaa dagaal sokeeye. waxaana isweydiin mudan mar kale miyay xamili karayaan iyagoo hadda soo kabanaya si gaar ahaaneed gobolka Kurdistan iyo eriyada haddii la isku qabto horumarno muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayeen. suuragal soo ma noqonayso mar kale in Ciraaq dib ugu laabato dabin kale iyo dagaal kale oo aysan shaqo ku lahayn in gudaha dalkeeda uu ka dhaco. sidoo kale Turkiga ayaa arinta Kurdiyiinta il gaar ahaaneed ku haya, mana doonayo Turkiga Kurdiyiinta in awoodooda ay dib u soo laabato oo waxay in badan ku dagaalameen gudaha dalka Ciraaq. hadda waxaad muddo inay heshiis ay galeen sidii horena isaga soo dhawaadeen. marka haddii aad eegto dhaqdhaqaaqyada guud ahaan gobolka ka soconaya waxay dareemayaan Turkida inay iyagana mustaqbalka saameyn ay ku yeelan karto. Iiraan waxay sheegtay marka inay ka jawaabi doonto haddii xaaladda ay faraha ka baxdana waxay ku hanjabeen inay bartilmaamaysan doonaan xarumaha nuclear-ka ee gudaha Israa'iil. marka qorshaha plan B-ga ah oo Kurdiyiinta laga yimaado waxaa degsan qorshe kale, qorshahaas oo ah in lala heshiiyo kooxaha mucaaradka ee gudaha dalkaasi Iiraan iyaga dhexdoodana la abaabulo, kadibna ay halkaasi dagaal gudaha ay ku furaan Iiraaniyiinta. haddii marxaladaasi Iiraan ay ka guuleystaan dana mar kale waxay u noqon doontaa fursad kale oo taariikhi ah iyo sidoo kale gul muhiim ah oo ay gaareen. Iiraan waxaad moodaa marka cadaadis dhinacyo badan in la saarayo oo dhanka badda iyo hawada iyo sidoo kale dhulkaba, oo maraakiib badan ayay dowladihii reer galbeedka ee gobolka ay u soo direen. sidaas oo kalena duqeymo dhanka cirka ayaa ku soconaya xarumo badan. welina waxaa la sheegay inay Iiraan hubkeeda qaar aysan adeegsan, waxaana laga baqayaa dagaalka inuu ka baaho hadda halka lagu dagaalamayo. dhinaca kalena Iiraan hadalle ay jeedisay saacadii la soo dhaafay oo ay ku sheegtay inay weerarkii Azerbaijan iyaga aysan ka dambeyn ayaa sii xoojinaya shakiga laga qabo in weerarkaasi ay ka dambeeyaan gacan saddexaad, isla markaana la doonayo in dagaalka laga ballaariyo
halka hadda uu taagan yahay dowlado badanna lagu qasbo inay dagaalka ay ku soo biiraan dowladaha khaliijka qaarkood waxa ay qorsheynayaan inay dagaalka qayb ay ka noqdaan waxaa sir gaar ahaaneed indhaha lala raacaya qatar sacuudiga iyo imaaraadka carabta oo laga baqayo go'aano culus inay qaataan haddii xaaladdu sidaan ay kusii socoto ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan qoraal ayay soo saareen goordhow waxaana ay ku sheegeen in ay cadowgooda ay albaabadii jaxiimo ay ku fureen kadib markii gantaalada nooca culus ee qoromshahr lagu magacaabo ay ku bartilmaamaysadeen gudaha Israa'iil sida lagu sheegay qoraalkan oo ka soo baxay taliska ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan. Qobarada dhanka amnigana waxay ka digayaan suuragalnimada in weerar dhanka dhulka lagu qaado dowladda Iiraan taasi oo keeni doonta bay yiraahdeen caqabad weyn iyo dagaalkan inuu ka weynaado xitaa heer gobol waxaana taasi keeni doonta bay yiraahdeen dagaalkii saddexaad ee dunida in la aado. dowladda Iiraan waxay sheegtay in dagaalka tani markii uu bilowday Israa'iil iyo Mareykanka ay bartilmaameedsadeen 20 goobood oo waxbarasho iyo 11 xarumood oo isbitaallo ah. Seeriga digniinta ayaa weli laga maqlayaa qaybo badan oo gudaha Israa'iil ah. Iiraanna mar walba waxa ay bartilmaameedsanaysaa gudaha Israa'iil. sidoo kale Iiraan waxay ku dhawaaqday inay soo riday diyaarad Mareykanka laga leeyahay oo ah F-15 sida lagu sheegay warbixintan oo ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan. qaraxyo xooganna waxaa laga maqlayaa bartamaha Israa'iil kadib markii Iiraan ay gantaalo halkaas ay ku weerartay iyadoo taliska nidaam difaaciidka Israa'iilna ay sheegeen inay gantaalo badan ay soo rideen tan iyo waa berigii maanta. Iiraan waxay Israa'iil ku eedeysay in weerarkii ugu dambeeyay diyaaradda drone ee lagu qaaday Azerbaijan inay ka dambeeyeen iyaga sidoo kalena waxaa la sheegay in ay ka dambeeyeen weerar kale oo lagu qaaday qaar ka mid ah dalalka gobolka. arrintan shaki weyn ayay abuuraysaa ma Iiraan ayaa ku soo weerartay mise Israa'iil. Iiraanna dhinaca kale waxay sheegeen inay gantaalo cusub ay ku weerareen gudaha Israa'iil taasoo qayb ka ah mawjadaha saacadii ugu dambeeyay ku weerarayeen Israa'iil iyo dalalka kale ee gobolka. waxyaabo ka soo kordhoon kula wadaagi doona.